السلام عليكم. soo dhawaada asxaabta kusoo dhawaada cashirkeeni toddobaad oo ka mid ah casharadeenii taxanaha ee CSS-ka. cashirkeenan waxaan ku qaadan doonaa waxa loo yaqaano CSS padding. CSS padding marka CSS padding wuxuu yahay marka hore aan isla ogaano waxa uu yahay, kabacdi ayaynu ka sheekayn doonaa waxa loo adeegsado iyo sida loo isticmaalo. marka CSS padding waa properties, waa property are used to generate space, kuwaasoo loo isticmaalo in lagu sameeyo space ama meel bannaan around an element's content, meesha bannaan oo ah hareeraha macluumaadka ku jira elementiga, macluumaadka elementiga ku jira. tusaale ahaan wuxuu noqon karaa paragraph, b xiran ama b tagta hore ee furan iyo b tagta dambe ee xiran. inta u dhaxaysa qoraalka u dhaxeeya waxa la dhahaa content element. marka content elementiga hareerihiisa space ah buu sameeyaa padding. tusaalaha ayaan ku arki doonaa codinka inside of an undefined border. haddii uu border leeyahay contentigaasi, borderka dushiisa ka samayn mayso space sidii marginka, laakiin borderka gudihiisa ay space ka sameynaysa oo contentiga iyo borderka ay kala fogeynaysaa. halkii marginku borderka iyo contentiga oo wada socda uu macnaha hareerihiisa ka sameynaya space, laakiin tan contentiga ay space u sameynaysaa, borderkana ka sii fogeynaysaa. ka soco padding individual side mid la dhahaa jira, kaasna waa sidii marginka uu kala mid yahay oo afarta jihaba left iyo right, top iyo bottom mid walba gaarkiisa aad u isticmaalaysaa. bidixda in baad ka durkinaysaa, midigta in, kor in, hoosta in. CSS has property for specifying the pattern for each side of an element. waa inaad dhinac walba ka siisaa qiimo gaar aad ka siisaa pattern kaas waxaa la dhahaa individual sides. tusaale ahaan waa kan, waxaa tiri pattern top intaa ka durug top baad, right-kana intaa ka durug, bottom-ka intaa ka durug, left-iga intaa pattern ka dhig oo ka durug. okay, codinka haddii lahayd ku arki doonaa. intaynaan u gelin wax kale, horta bal aynu intaa tijaabino. haddii lahaydmo kood ahaan aynu tijaabino. sublime text-ga ayaan soo furanayaa, adiguna editor-kaaga soo furo. tusaale ahaan halkan file baa ii yaala. failka waxaa ku jira waa html file. halkana waxaa ii yaala link. linkigaas wuxuu isku xidhayaa html page-kan iyo css page-kan wuu isku ka xidhayaa. hore ayaanu in badan usoo sharaxnay qaabka la isugu xidho iyo qaabka page cusub loo sameeyo, marka taa hadda ku noqon mayno. labada page markay isugu ka xidhan yihiin, halkan waxaa ii taala b tag. b tagta waxaa ku qoran kusoo dhawow Lancome 252. b-dan ayaan qaat, halkan ayaan tegay, waatan intaan iska tuuray. okay, waxaan rabaa individual side. hadda waxaad u jeedaan kasta border aan qaybtiisa sare inta ay u jirto borderka inta marka ugu horeysa, si aan u fahno padding waxa uu yahay. waxaa idhi border style, border si loo sameeyo hore ayaad u aragtay. solid control s baan idhi, waxaan ku noqday border kan ayaan ku noqday, isna waa save gray html page-kayga open in browse baan leeyahay markaa. okay, waa kan sidan ayuu usoo baxay. hadda waxaad u jeedaan borderka qaybtiisa sare inta ay u jirto qoraalka, inta ay u jirto wax yar bay u jirtaa. xaggana wuuba ku dhegsan yahay, kacda ayuu ku dhegsan yahay, xaggan hoosena wuu ku dhow yahay. paddingku wuxuu kuu sameynayaa inuu contentiga waa intan macluumaadkan iyo borderkan oo kala matalanba inuu kala fogeeyo, ama contentiga inuu hareerihiisa space ka sameeyo. tusaalehaan xaggan aan ku noqonayaa html css kan tegaya, halkan ayaan tegaya. marka waxaan leeyahay padding top, waxaan leeyahay waxaad ka durugtaa 20 pixel. waan save gray, halkan aan ku noqdo. haddeer bal borderka iyo qoraalkana intay kala durkaan u jeeso markaan refresh dhaho. soo ma jeedid contentigan ayaa hareerihiisa waxaa laga sameynayaa space. soo kumayna soo arag definitionkii. marka contentiga dushiisa borderkii uu kasoo fogeeyey, space buu dushiisa ka sameeyey. hadda bal aan eego right-kana, left-gana aan eego, aan dhaho left-ga space iga sameeyo. tusaale ahaan halkan aan tegay, waxaan idhi padding left, waxaan idhi isna xasiisaa 20 pixel.
control s baan nidhi refresh baan nidhi soo ma jeedid xaggana uu ka durkiyey xagga hoosena bal aan dhaho padding right 30 pixel sorry right yana dhihin bottom aan dhaho 30 pixel soo ma jeedid hadda right-ka oo kale dee markiisa hore ayaa qoraalku uu yaalay laftiga laakiin hadduu centerka ooli lahaa oo kale waan sameyn laakiin haddeer haddaynu dee padding ku darro iyo haddii kaleba macnaha macno weyn noo samayn mayso waayo xagga dee space banan baa xaggan ka xiga oo iska bannaan tahayba laakiin saddexdaa shay kale waa samayn kartaa waad arkaysaa effectiga ku dhacaya waayahay intaa waxaa la dhahaa individual side padding individual side oo dhinac kasta waynu ka isticmaalaa okay waxaa jira intaa haddana iska tuuro waxaa jira siis horta aynu ku celino waxaa jira paddingka noocyo kale oo jira noocyada kale waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano horta qaabka waxyaabaha la adeegsado ama valueska la siiyo paddingka muxuu yahay mid waxaa la dhahaa length midna waxaa la dhahaa percentage iyo inheritance saddexdaa uu leeyahay wuxuu kaga duwan yahay marginka waxaa jira mid la dhaho automatic u taagnaa hadda inagu waxaan isticmaalnay lengthka waxaa lagu cabiraa pixelka pt-ga centimeterka iyo wixii lamid cabir caadiya la siiya tira la qoraa deetana cabir baa dabada laga raaciya percentage-kana tira la qoraa markaasa percent dabada laga raaciya inheritna horey baan soo sharaxnay oo parentiga waxa uu ah selectorkaagan parentigiisa ayuu la noqonaya haddaba set different padding for all sides of diff element tusaalahaan kan oo kale haddeer horey baan usoo sharaxnay ku noqon mayno haddii uu paddingkii uu leeyahay saddex barbart haddeer afar jiha waynu wax ka siinayna bal hadduu saddex yeesho ka waran mararka qaar waxaad ku arkaysaa website-yada iyo saddex value uu leeyahay haddeer inagu marka dhowto afar value baynu siina weliba saddex baynu siina weliba right-kana way ku dari karaa in right-kana ku darla si ay caadi isugu qabsato afarta value waad siin kartaa afarta value haddii aad siisid individual side baa kaala dhaha saddex value maruu leeyahay buu jiraa marka saddex value leeyahay waa sidee tusaale waxaad leedahay padding dabeetana waxaad leedahay 20 pixel 20 pixelkaas waxay u taagan tahay top dabeetana waxaad tiri 50 pixel 50 pixelkaasina wuxuu taagan yahay right and left 20 pixel baan haddana tiri semicolon baa u dambaysiisa 20 pixelka ugu dambeeyana wuxuu taagan yahay bottom marka top iyo bottom waa la kala qaaday oo labada labaatanaad content-kuna waxaa wadaagaya right iyo left waa markuu three values leeyahay padding balan save gareyno soo ma jeedid labadan top iyo bottom way isleeyihiin waa min 20 labadiina way isleeyihiin oo waa min 50 laakiin page markii hore ay qoraalku wuxuu yaalay leftiga hadduu centerka oo lahaa way isla ekaan lahaayeen ka socono okay tusaalahan waa intaan hadda sameynay oo kale padding baad dhahasaa saddex value baad u baasasaa ka ugu horeeya 25 muxuu taagan yahay wuxuu taagan yahay top padding content muxuu taagan yahay left iyo right padding buu taagan yahay boqolkana muxuu taagan yahay halkan waa qadna 25 ma waa boqol wuxuu taagan yahay bottomka ka soco if the padding property has two value hadduu laba value leeyahay ka labada value wuxuu leeyahay hadduu leeyahay labadan hore 25 ka hore value-ga hore waa top iyo bottom wada socda labada dambana waa right iyo left wada socda waa ka wada jeedaa taa ugu dambaysa bal aynu tijaabino kan oo kale aan ka jiro right and kan oo kalena ka dhigno content oo kale okay wada jeedaa marka paddingku waa topic aad u muhiim ah marka la joogo web development-kana waxa aad tiro badan qabta shaqooyin badan inoo qabta page-ka qurxintiisana website-ka qurxintiisana ka qayb qaata marka haddii la haydmo markaan dhamayno course-ka CSS-ka waxaan sameyn doonaa project-iyo real life oo caadi ah markaas ayaad arki doontaa faa'iidada iyo waxyaabaha uu inoo qabanayo hadda waa inaad concept ka qaadatid oo aad fahantid sida uu shaqeeyo haddaad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaatidna waxaad tagtaa channelka project-yada ku jira ee aan website-yada dhammaystiran ku sameynano
kaas ayaad ka ogaan kartaa faa'iidada uu leeyahay oo aad ka arki kartaa. cashirkan intan ku egyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah.